بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي ومحمد شيخ حسن كل dad fara badan oo waxa jiro aan iswajiye garanayno iyo dad aan soo wada shaqeynay Ibrahim Arbe Liban kulli waa aniga muuqaalkiisa waa garanaa asaga laakiin ma garanayo laakiin nin fieldigan ku jira muddo badan ku jiray caawa aad baa ugu faraxsanahay in dadkii madaxda ahaa oo narada ahaa maqaayadaha lahaa cafe shop-yada lahaa inay joogaan shaqaalana ay joogaan waxa kale caawa aad ugu faraxsanahay fieldiga ugu muhiimsan ay Soomaali laadahay qof dhigto oo kamid ah maarta jaamacad buu jiro in naga joogo marka aydan aad ugu faraxsanahay horta hal talo waxaan siin lahaa oo narada hal su'aal waa wataan raba oo narada inaan weydiiyo oo aad muhiim u ah talada marka hore waxaan dhihi lahaa oo narada inay dulqaad badan muujiyaan waxaan u sababeynaa dulqaad badan in la muujiyo dalkeena wuu burburay keli dal keli nagama burburine dad ahaan waa u burburnay dad ahaan baa u burburnay markaan ku leeyahay dawladaha dhisan ee hormaray ee caalamka hadda ugu hormarsan markii naloo fiiriyo anaga markii naloo fiiriyo waxaan u maleynaa zero in ay imaaneen hatta 1% ma imaaneen tusaale yar ayaan siinayaa laba dhacdo oo cajiib ah oo la yaabay hadda ka hor mid waxay Ingiriiska ka dhacday leeyahay nin wasiir baarlamaanka la balansanaa inay la hadlaan su'aalo weydiiyaan intuu dhaxda ku soo jiray ayaa ma aqaan wax ka khaldamay 5 minutes soo daa baarlamaanka markuu soo galay I don't know inaa maqashin ka waran automatically wuu sacsilay inagana wasiir ba qolo audit loo soo diray telefoonka qaban waay xafiiska markuu tagay agaasimiye baa cali wasiirka u baahan wasiirku uu wacay waxa la yiri teamka auditka ku rabo wuxuu yiri wasiir corona ku dhac waxaan u sameeyay marka dad noocaas ah oo maartay aad wali u dambeeyo marka waxaan kula talinayaa dadka awnarada ee mas'uuliyiinta ee maartay maqaaxiyaha furay ee waliba jaaniska nasiiyay dhalinyar ahaan inaan fursad ka faa'iideysan dulqaad badan hana loo muujiyo waxaa jirto kale fuliixantiisa ma moogaaleeyo Soomaali hadaan dulqaadku aan ugu yeeriyo si guud hadaan awnaranahay hadaan shaqaalana iyo hadaan customerkiis kursiga ku soo fadhiisto hadda Xamza sheegayo hadday dhicaysa hadda shaqo ka soo baxay isla hadday dhicaysa arintaas kursiga uu ku fadhiistay wuxuu leeyahay hal saac baraan fadhiya wal kursigii wali ma arkin ba wali ma salka dhulka leelina goorma cabaadaysa marka customerka si aan ugu dulqaadano idinka awnarada noo dulqaata shaqaalana waxaan dhihi lahaa hala dulqaato hal su'aal oo muhiim ah rabaa inaan weydiiyo dadka awnarada runaantii hor dadaal badan iyo isbedel badan baa la sameeyaa waxaa jirto inaan sameeyno meel qurux badan awnarada aan gaar ahaan su'aasha u weydiinayaa meel qurux badan la furayaa investment badan la gelinayaa dhaqaale la gelinayaa qarash la gelinayaa meeshii aad loo qurxinayaa laakiin boqolkiiba 85 service-ku waa very poor marka maxaa loo laayahay dadka awnarada ee business-kan maal geliyo qof ka fikiro in dad hospitality experience ku ah meel macnaha loo furo oo shaqaalo lagu train gareeyo maxaa loo laayahay qof investigareeyo macnaha waan ka fikiraynaa inaan business kan furno laakiin business kan janis oo maartay macnaha wax badan ka maqan hadda markii dhismaha galay sidoo kale marka businesskii markii waxaan dareemaa in meel qurux badan oo beautiful oo waxyaale oo garden oo maartay markaad soo gasho aad ku inda doogsanayso laakiin service-ku very poor marka maadaama dalkeena uu aad u liito awnarada waxaan rabaa su'aashaas inaan weydiiyo maxaa loo laayahay qof furo meel lagu train gareeyo dadka hospitality-ga sameeya ama dadka maartay experience meel lagu dadka intii dhalinyarada lagu soo dhiso qofku si walba waa ogtahay hadduu xataa jaamacad soo dhigto wuxuu u baahan yahay xirfadan inuu barto tusaale hadii wiilku dugsi sare dhameeyo oo leenahay meel cuntada lagu barto jaamacad munaadeen cuntada soo baran lahaa asoo cunto quality la karinayo shaqada soo gali lahaa laakiin hadda maxaa loo laayahay su'aashaas maartay maskaxdeeda ka guuxaysay qof intuu investment sameeyo dad loo abuuro oo training meel lagu train dadka lagu train gareeyo sababta loo furlaayo